بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkii oo fidsan. wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa xariga waxa uu ka jiray dhaambiyood laga hirgeliyay deegaanka wadamo Kaahil oo ka tirsan degmada Farweyn ee gobolka Maroodi Jeexe. mas'uul ka tirsan hay'adda Faro Foundation oo iyadoo dhaambiyoodkaasi hirgelisay ayaa waxa uu sheegay in dhaamkaasi uu yahay mid tayo leh oo loo dhisay hanaan casri ah isla markaana noqon doono mid baahiyaha deegaankaasi daboolo oo ay kaga reystaan biyo la'aan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Cabdixakiin Siciid Bustaale xildhibaan Axmed Dayib ku cadeeyay oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa waxay bulshada ku dhaqan deegaankaasi oo ku nool ay ugu baaqeen in dhaamkaasi loo hirgeliyay ay ku dadaalaan sidii ay u ilaashan lahaayeen. qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka wadamo Kaahil ee dhaambiyoodkaasi loo hirgeliyay ayaa u mahadnaqeen cid kasta oo ka qayb qaadatay fulinta dhaamkaasi waxaana ay ballan qaadeen inay ilaashan doonaan. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan oo si rasmi ah xariga uga jiray dhaamkaasi cusub ay yeelan doonaan bulshada ku nool deegaanka wadamo Kaahil ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay taageerada mashaariicda dhanka horumarka ah ee ka socda gobolada dalka Soomaaliland. waxaana uu mahad celiyay hay'adda Faro Foundation iyo bulshada ku nool deegaankaasi oo kaalin muhiim ah ku lahaa hirgelinta mashruucaasi. komishanka xakamaynta xanuunka HIV/AIDS ayaa barnaamij wacyigelinada ku saabsan xanuunkaasi ka sameeyay degmada Xariirad ee ka tirsan gobolka Sildhiil. barnaamijkaasi wacyigelinta ah oo ku saabsan xanuunka HIV/AIDS waxaa horkacayay isduwaha komishanka heer qaran ee xakamaynta xanuunka HIV/AIDS ee gobolka Sildhiil Farxaan Daahir Cilmi. qaar ka mid ah madaxda qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Xariirad ayaa mahad celiyay mas'uuliyiinta xakamaynta xanuunka HIV/AIDS ee ka tirsan heer degmo, heer gobol iyo heer qaranba. waxaana ay tilmaameen in fariimaha ku saabsan xanuunkaasi ay yihiin kuwa muhiim u ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Xariirad. mas-uuliyiintan ayaa waxa ay xakamaynta HIV/AIDS ay ka soo jeedineen halkaasi hadalla wacyigelin kuwaasi oo ku saabsan xanuunkaasi iyo dhibta bulshada uu keeni karo. mas-uul ka tirsan militariga dalka Mareykanka ayaa waxa uu cadeeyay in markab diyaaradaha xambaara ah oo loo yaqaan Ford subaxnimada saaka ee Arbacada ah uu gaari doono xeebaha wadanka Israa'iil kaas oo ka qayb qaadan doona howlaha difaaca wadanka Israa'iil. markabkani oo hore ugu sugnaa badda dhexe si wadamada Yurub uu uga difaaco duulaanka ay markaasi u jihaysatay Israa'iil ee Falastiin. Israa'iil ayaa waxa ay ka caawin doonaan dhanka ciidamada iyo guud ahaanba qaybaha nolosha. sida mas'uulka warbaahintaasi la hadlayay uu sheegay waxaa markabka saaran 5 dooyaha dagaalka ah, gantaalaha meesha fog wax ka duqeeya iyo ciidan aad u tiro badan kuwaas oo wax badan ka bedeli doona dagaalka ka socda. Mareykanka, Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa si buuxda waxa ay ugu baaqeen inay qayb ka qaadan doonaan dagaalka lagu difaacayo jiritaanka wadanka Israa'iil. waxaana la saadaalinayaa in ciidamo ka socda wadamadaasi ay galaan dagaalka oo ay ka barbar dagaalamaan ciidamada wadanka Israa'iil. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ugu baaqay hogaamiyaha kaliya ee isagoo ah cambaariyay taageerada reer galbeedka. waxaana uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu kaga hadlay markabka iyo ciidamada wadanka Mareykanka ay u diyaariyeen Israa'iil. Erdogan waxa uu ku tilmaamay baaq dagaal oo reer galbeedku ay ku dhawaaqeen, waxaana uu tilmaamay in taageeradani ay ka weyn tahay heer la aqbali karo, isla markaana ay caddahay in la doonayo burburinta magaalooyinka dadka rayidka ay ku dhaqan yihiin ee Falastiin. madaxweynaha jamhuuriyadda Chechnya ayaa waxa uu ku baaqay in isbahaysi ay samaystaan dowladaha islaamku si ay isaga difaacaan dadkooda ka soo horjeeda dhibaatadana ku haya wadankooda.
madaxweynaha waddankaasi Chechnya ayaa waxa uu soo jeediyey oo hadal dareen celin ah uu ka bixiyay xaaladda ka taagan waddanka Falastiin waxaana uu dalalka reer galbeedka ugu baaqeen in aanay duqeyn magaalooyinka iyo goobaha rayidku ay degan yihiin madaxweynaha Chechnya ayaa waxa uu sheegay in reer galbeedku ay og yihiin in dagaalyahano aanay ku sugnayn goobaha hubkooda lagu duqeynayo waxaana uu tilmaamay in ujeedada ka dambaysa ay tahay argagaxgelin lagu hayo dadka shacabka madaxweynaha waddanka Chechnya ayaa waxa uu sheegay in reer galbeedku ay ciidamo iyo hub culusba ay ku daadgureynayaan taasi oo ah tallaabo qaldan oo lagu wiiqayo isla markaana lagu baabiinayo Falastiin hogaamiyaha Chechnya ayaa waxa uu sheegay in oohin iyo cadho aanay waxba u taraynin muslimiinta balse dagaalka loo cadeystay ay tahay waajib in iyaguna isku gaashaan buuraystaan oo ay dhan ka noqdaan dagaalo culus oo gogoos ah ayaa xalay waxay ka dhaceen xadka u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan halkaasi oo xoogga ururka Xisbullah iyo militariga Israa'iil ee madaafiic iyo hubka kala duwan ay isku garaaceen deegaanada lagu magacaabo Shibca ee magaalada Suur ku teedsan oo xoogga Xisbullah ay ka taliyaan ciidamada waddanka Israa'iil duqan culus ay u geysteen halkaasi oo beddelkeedana Xisbullah madaafiic iyo gantaalo ay kaga soo jawaabtay golaha wasiirada waddanka Israa'iil oo shir jiraa'id yeeshay ayaa waxa ay dhageysteen taliyaha ciidamada kuwaasi oo cadeeyay in aanay suurtagal ahayn jiha cusub oo dagaal in Israa'iil ay isku furto waxaana ay ka diyaariyeen hawshaasi sidii ay u qaabili lahaayeen iyagoo ka diiriya halista ka dhalan karta dagaal buuxa oo lala galo Xisbullah xaaladahani ayaa waxay ku soo beegayaan waqti duqan culus oo ciidamada Israa'iil ay ku hayaan gacanka Gaza taa beddelkeedana ay Falastiiniyiintu ay boqolaal gantaal ay ku duqeynayaan magaalada lagu magacaabo Casqalaan ururka Xamaas ayaa waxa uu qirtay in laga dilay mid ka mid ah hogaamiyayaashooda kaasi oo ku dhintay duqeyntii salaasadii shalay lagu qaaday Gaza waxa kale oo socda barakicinta kumanaan shacab Gaza ku dhaqan oo Israa'iil ay duqeysay xaafadihii ay deganaayeen Israa'iil ayaa xidhay xadka u dhexeeya Gaza waxaana ay ku hanjabeen in ay duqeyn doonaan gaadiidka gurmadka ah ee dalka Masar ka soo gelaya taasi oo aanay xukuumadda Masar wax jawaab ah aanay weli ka bixin warkii oo ka dhageysanaysaan radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland akhyaarta qiimaha qadarinta mudan ee hawada nagala socda dhageystayaal waa naga intaasi